السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقة سو دواذا dhammaan walaalahay groupkayga aad baan idin salaamayaa. maanta shaqadu waa fridge-ka la hagaajinayaa. bil way iska dhammaatay, raashinkuu ka dhammaaday, soo waa loo soo adeegay. maanta waan soo adeeganay, soo waxaa waaye fridge-kii aan dhaqayaa, kadibna alaabtii aan ku xareynayaa. waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago saad ila daawataan. soo alaabaha meeshu iska wada buuxaan. maanta waa lasoo wada adeegay, raashin ha dhihin, qudaar ha dhihin, hilibkii wixii oo dhan. shaqada way badan tahay, intaan ka gaara idinkaga soo qaqabanayaa. inta kalena waxaa waaye aniga iyo wixii garabka isiinaya familka insha allah, iyo ilaaha nala dhameeyo intii la mid ah. shaqada maalintay tahay bisha bilaaw 1 ilaa 5 waa sidaas way iska dhib badan tahay. raashinkii oo dhan oo wada dhammaaday, waa la wada adeegtaa. soo waa culays maalinta adeega iyo waxaas galaa, aniga saa uma jecli, laakiin waa laba huraan. bil kasta waa qasab inaad wax cun soo gadid. soo hadda waxaan ku shubanayaa fridge-ka dhexdiisa alaabtan aniga isku darsaday. waxaa waaye window glasski, baash muraayadaha lagu dhaqo, iyo waxaa waaye vinegar ama qal aan isku daray, iyo waxaan kaloo ku darsay baking soda. waxaan u isticmaalaa fridge-ka, microwave-ka, muraayadaha waa idin sheegay. si fiican bay u nadiifinaysaa meelahaasoo dhan, jeermiski wixii dhan ay ka dilaysaa, maadaama raashin uu meesha ku jiraayo oo lagu keydiyo. waa muhiim baking soda xitaa haddii aad heli kartid fridge-ka dhexdiisa waa la dhex dhigtaa, waxyaabihi cayayaan bacteria wax dhan ka cararo, marka waa muhiim. haddeer waxaan ka gurayaa alaabtii, qaarna way ku harhareen, qaarna waa la dhameeyey. soo intii hartay waa hareen, waan ku celinayaa. intii dhammaateen waan iska bixinayaa. wixii jaafu ah dhanaa meeshaas ka saaraysaa, hoos ilaa iyo kor waan ku wada shushubayaa. sidaa ula socda, wax yaraan sugayaa, kadib waan soo dhaqayaa. sidaasaan ugu wada bixiyey, meel walba waan ku buufiyey. waxaan ku dhaqayaa marka istiraasho nadiif ah iyo biyo yar aan raacinayaa oo nadiif ah ayagana, wax yar qalka aan ku daray. ila socda waan isku soo noqoneynaa. asxaabtayda qaaliga ah, waa kaas alaabtii dhan aan kusoo xareeyay, sidaas dhalaalku kusoo baxay. waa ujeediin qaybtaas kor waa qaybtii oo ice-ka ama barafka. meeshaas waxaan gashtaaye hilibkii wixii aan ku cabeeya, iyo chickentii iyo malaayga intaba waa iskugu geeyaa fishka. qaybtan waa qaybtii kor, iyo jiiskii waxaasaan geliyaa. waan soo dhaqay, sidaas dhalaalka ah uu kusoo baxay. baking soda iyo qal ha moogaanina, ku darsada markaa dhaqanaysiin. sidoo kale meeshan waa qaybtii hoos, wixii dhanaa ka wada bixiyey, hoolay noqotay. waa soo wada dhaqay, waad aragtaan. fridge-ku wuu dansan yahay, ma shidno. isagoo shidan waa stiima ama koronto, lama dhaqi karo. stiimada iyadoo dansan waa inaad dhaqdaa, stiimadoo shidan ma dhaqi kartid, ama korontadoo shidan. soo haddeer dhalooyinkii dhan aan kusoo wada celiyey oo clean ah, waad aragtaan. markii hore wasaq buu ahaa, sidaasaan usoo kalin gareeyey. fidiyaha marab inuu idinku sii dheeraado, anna shaqada way igu badan tahay, waa idinsoo ka koobay inta muhiimka idinkaga soo qabanayaa. soo sidaas bay u dhalaalaysaa markaad u isticmaashid baking soda iyo qal. kaalay arag waaye, maasha allah, qurux. xitaa haddeer leerkiisa ma shidno, wuu dansan yahay. nalka hadii la shido wuu kasii dhalaal badan yahay. halkan waxaan ku haystaa mozzarella cheese-ka oo biizada lagu darsado waaye, ama ilmaha ugu karsan kartaa cuntada. soo alaabta hoos waan kusoo celceliyey, intii dhammaad waan iska saaray, intii nadiifna waan kusoo celiyey. mayonnaise-kii, coconut milk. tan kale alaabta aniga raashinka sidaasaa u xirxirtaa, bacdaasaan isticmaalaa. fridge-ka qaartood qudaarta ma gelin kartid, way kaa halaabayaan. greeniska qaar waxaaba qabow uma adkeysan karaan, marka waxaan sameeyaa waa xirxiraa. qaybta hoos waxaan geliyay koosto iyo sukuma, baalkaas beetroot-ka iyo kan kale intaba waan geliyey. qudaar baa hoos iskugu geeyay, intii green ah dhan hoosaan wada dhigayaa badankood. halkan waxaa waa digirta hindida, baamiyo, gadaal waxaa igu jiro passion iyo carrot, intaasna hoosaa dhigay. cabbage-kana sidoo kale hoosaan dhigtay.
so inta kale waa baceeyay sidooda kuma gelin kartid way kaa halaabayaan waa inaad bacdi yar u isticmaashaa baamiyada barbarooniga digirta intaasba sidaas sameeyay iyo kajaarka waa qaybtan asna waa kajaarka ilmaha cunto loogu daraa salarka ku jarjaran kartaa dad qaarkood juice ka samaystaan laakiin ani kama heli sidoo kale caagan waxaa caaga firiishka cuntada lagu gashto waxaan ku ritay liintii tomaatadii ama yaanyadii iyo waxaan ku ritay baashonka qayb ka mid ah waa kuwan qaybta fruit koraan saaray waa ananaaskii iyo baashonkii haddaan lightka soo shiday oo korontada u shiday inta waxaa igu jirta digirta cagaaran digirta fuulka waayo cagaaran raashinka ku darsan kartaa aad u fiican tahay ama maraqaad ku darsan marka sidaasaan usoo habeeyay kor iyo hoos 3 qayb waaye 3 qayb sidaas u kala nidaamiyay waa full fridge-ka intana waxaan geliyay caanihii tomaatadii waxyaabihii lama marsanayay pancake iyo rootiga iyo wax la marinayay macmacaankii chocolate-kii waxaasaan geliyay mayonnaise-kii caanihii qumba waxa dhan ku jiro cheese jamkii iyo looskii inta way igu jiraan korna waxaa ukuntu way badan tahay aadan ukun u isticmaalnaa ilmaha siista anaga isticmaalno soo ukuntu waxaan gataa full iyo mar 2 qayb aan qaataa ukunta aadan u isticmaalnaa oo ku darsanaa qaybta kor shaqadeeda ii harsan qaybta kor waxaa hilibka in la soo xirxiro shaqada weli way dhiman tahay chickenka in la soo xirxiro malaayga in la soo xirxiro chickenka labada nooc weli laba nooc aan ka qaataa midka lafta aan lahayn oo hilibka ah iyo midka oo garabka iyo lugta iswata aan qaataa waa saa fiican lugaha marka waxaan sameeyay labada nooc oo isku darsadaa waa u jeedin waan soo xirxiray hoos waxaan dhigay hilibkii marka waan kala saaray qaybta hoos waxaa waa hilibka qiyaasta saa u xirxirtay qof walba qiyaastiisa familkiisa ay ku xiran tahay inta ku filan asaga yaqaan hilibkan isticmaalno waa hilib ari bas aan isticmaalnaa hilib geelka meeshaan lama hubo badanaa waa iska qurba soo marka hilib ariga noo fiican anaga aan soo gadanaa neef yar ama neef barkiisa soo gadanaa halkan waxaa waa chicken to lugta garabka iswata waaye midaan waxaa waa malaay qaybtaas kalena waxaa waa chicken to hilibka ah marka waa kala qaaday fishka iyo chicken to hal dhinacaan ka dhigay malaayga chicken to hal dhinacaan dhigtay qaybta hoosna waxaan dhigay hilibka caagas waxaa waa digirta cagaaran hoos kuma sii jiri karto waa inaad kor keentaa koran keenay asxaabteyda soo dhawaada waa idinla wadaagay inta yaroo maanta aan ka gaaray intaan ka gaari waana ka raali noqda sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.